taariikhdu waa 23 bisha 9aad 2025 waa habeen ay arbaca soo galayso. waxaan doonayaa inaan baraarujiyo shalay iyo maanta iyo arin aad su-aasheedii igu soo noqnoqotay oo social mediaha dadku ay ku wadaagayeen, anigana aad la soo weydiiyey. ayaan rabaa insha Allah taala inaan cadeeyo si dad fara badan oo ku fitnoobaya ama xadgudub ku geysanaya ama diintooda dhaawac iyo aakhiradooda dhaawac soo gaarayo ay uga badbaadaan. masaladaasi waxa weeye su-aalihii aan ka jawaabi jiray oo jumcada iyo khamiista bil walba u horeeya ayaa waxaa la igu weydiiyey su-aal gabadha haddii aabaheed uu bixiyo ninka ay u doonan tahay weli intaan loo meherinin maxaa uga bannaan, ma u bannaan tahay mise uma bannaana? haddiise uu u galmoodo oo ilmo meeshaasi uur galo, ilmahaasi ma ilmo sharciya mise waa waladu zina oo waa ilmo zina ku dhashay? sheekh, gabadha aabaheed hadduu isiiyo nikaax la-aan ma la seexan karaa? hadday uur ii yeelatase ilmahaas xukunkiisu muxuu yahay? su-aashaas saasay ahayd. kadibna waan ka jawaabay. labada qaybood ay leedahaba waan ka jawaabay. qayb waxa weeye maxaa ninkaasi gabadhu u doonantahen weli loo meherin uga bannaan, waan ka jawaabay. kadibna waxaan ka jawaabay ilmaha uur galay oo intuu khaldamay oo mooday dooniddu inay meher tahay oo qaabkaasi markaa ugu galmooday isagoo moodaya inay xalaal u tahay. haddii ilmo sidaa ku uur galaan, ilmahaasi xukumkuu qaadanayo ma ilmo sharciya oo nasabka qaadanaya mise waa garac? ayadan waan ka jawaabay. marka qolyahan waayahan khariban inta badan ujeedooyin kale social media hadallada gogooya ayaa hadalkii kala jaray. waxay soo gooyeen qeybta ka hadlaysay ilmaha oo haweeneydii haddii uu u doonanayd oo weli loo meherinin, ninku hadduu barakeeyo ama uu maaragtay la seexdo isagoo moodaya inay xalaal u tahay, ilmaha sidaa ku uurgalay waa ilmo xalaal oo sharci ah. gabadhii oo u doonanoo loo meherininba buu iska barakeeyey, kadibna sidaasoy ilmo ku qaaday. ilmahaasi muxuu yahay? ilmahaasi waa ilmo sharciya. hadda ka hor baana masaa'il lamida ka soo jawaabnay. ilmuhu meher kuma dhalanin, soo maa? meher la-aan buu dhashay, haddana garac ma ah. qaybtaasay marka soo gooyeen, kadibna way faafiyeen iyagoo markaa ka dhigaya sheekhii wuxuu baneeyey gabadhaan mehersanin in lala seexan karo ay xalaal tahay. sidaasay marka dadka ugu dhigeen. waxaan doonaya marka masaladaasi inaan wax isdul taago. horta su-aasha ay kala gooyeen, hadalkay kala gooyeen oo su-aashii oo dhammaystiran iyo jawaabtii labadeedii qaybood oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan barnaamijkii su-aalaha xalaqada ama fadhiga 26aad 429 su-aasha nambarkeedu yahay. jazaak allahu khayran sheekh. su-aasha 429aad halkaasay ku jirtaa oo su-aalihii lay weydiinaya khamiista iyo jumcada. masalada haddaan marka iyadoo dhammaystiran oo saa u dhammaystiran oo su-aashay kala gooyeen oo dhammaystiran insha Allah waa laydiin soo gelin doonaa. laakiin haddaan wax yar sii caddeeyo, masaladu waxa weeye marna waxaa laga hadlayaa haweeneydan aan mehersanayn ee doonan ma bannaan tahay mise ma bannaana inuu xaas ka dhigto, inuu jidhkeeda taabto, inuu la cidloobo, la khalwoodo. marna waxaa laga hadlayaa haddii khalad dhaco oo isku khaldamaan iyagoo ismoodaya inay xalaal isu yihiin, haddii ilmo uur galo, ilmaha xukunkiisa laga hadlaya. midda hore waxaa laysku waafaqsan yahay oon shaki ku jirin, nin walbana garanaya, caami iyo culimaba taqaanaa, hadday gabadhu doonan tahay inay naag ajnabiya tahay
oo aynan ninkaasi aynan xalaal u ahayn oo uusan u galmoon karin oo jidhkeeda taaban karin oo uusan la khalwoon karaynin ilaa meherku dhaco loo guuriyo taasi waa caasho garatay way ruux kastoo muslima garanaya laakiin dadka qaarkood baa waxay isaga khaldami kartaa waana sida dhacday wuxuu u qaadan karaa doonida ay u doonan tahay macnaheeda inay u mehersan tahay faham khaldan baa sidaas u geli kara wayna dhacday oo wayba noo timid ba iyagoo loo galmooday oo sidaa isku reeraysteen oo moodahaya inay xaaskiisii tahay wayba noo timid ba masalada iyadoo noocaas marka fahamkaasaa dhici kara faham khaldan oo inuu moodo inay xalaal u tahay oo saa ugu galmoodo hadday taasi dhacdo marka oo ilmo uur galo ficilkii ma banaana inkastoo shaaficiyadu leedihiin waa banaantayna lama dhihi karo ma banaana lama dhihi karayo khilaaf baa ku jira madhabka shaaficiga xukunka ficilka laakiin ilmaha uur galay oo sidaa ku uur galay ma ilmo sharciya oo ninkaasi aabba miyuu u noqonaya oo nasabkiisa ma qaadanaya mise ilmuhu waa garac masaladaasina waa masalada labaad oo iyadana waxaan kaga jawaabay in ilmuhu uu nasabka qaadanayo ilmo sharciya uu yahay sidaana waxaa qaba culimada qaba jumhuur ahlilcilmi baa qaba fuqahada 4 madhabood baa qaba waxaa laga soo reebaa oo masaladaa diiday nin ka mid a fuqahada xanaabilada oo la yidhaahdo yani alqaadi abu yacla laakiin fuqahada intooda kale waxay qabaan ilmahaasi inuu abtirka qaadanayo ilmo sharciyana yahay saas daraaddeed baa kutubta shaaficiyada yani waxa weye masaladu way ka buuxdaa watu shubha la dhahaa yani haweeney si ismoodsiisa loogu galmooday sidaana ku uur qaaday haddaan matalan madhabka shaaficiga naqli yar ka soo guuriyo wuxuu leeyahay matalan imaam alxaramayn fi nihaayat almatlab wuxuu ku leeyahay walastu acrifu khilaafan annahu yatacallaqu bihi الnasab wاlcidda yani waxa weeyaan khilaaf ma ogi buu leeyahay masaladaasi galmada haweeney aan u mehersaneyn ninku uu galmoodo oo uu xaaskiisiina moodayo la tahay inay u bannaan tahay inuu u galmoodo arrinkaa inay ka dhalanayso haweeneydaasi inay ciddo tirsanayso marka labaadna ilmaha nasabkiisu inuu aabbaha haleelayo wax khilaafa ma ogi buu leeyahay imaam alxaramayn fi nihaayat almatlab sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isaguna wuxuu leeyahay wa wujuubu almahri waalciddati waannasabi laysa min khasaa'is alcaqdi asaxiix yani waxa weeyaan meher way leedahay maadaama loo galmooday si khalad baa loogu galmoodee ismootiisaa loogu galmooday meher inay leedahay ciddana tirsanayso nasabkuna uu midka u galmooday nasabku haleelayo ilmihii uu isagu yeelanayo arrinkaasi ka mid ma caqdiga saxiixa ama guurka saxda ah khaas kuma aha bal wuxuu ihi fa inamaa yahbutu fii wadci shubha galmo ku timid ismoosiis oo ninku uu mooday inay xaaskiisii tahay ayadana way ka dhalanaysaa nasabku inuu haleelo inay haweeneydu ciddo tirsato meher yeelato xadkii haddii la xadi lahaana way ka kor noqonaysaa sidoo kale oo macnaheedu waxa weeyaan ninku ismoodsiis hadduu haweeneyda ugu galmoodo zani weye la dhihi maayo la xadi maayo yani ismoodsiiska iyo malahaas iyo dhannigaas ayaa xadka ka kor yeelaya oo waa shubho ilmihiina nasab buu u samaynaya iyadiina way ciddo tirsan meherna way leedaho dee waa loo galmooday marka masaladaasi waa masalo yani uusan culimadu haalibkoodu ay qabaan shaaficiyaduna waxay u yaqaanaan shubhada 3 qaybood bay ka dhigaan shubhatulmaxal iyo shubhatulfaacil aw ilficli bay dhahaan iyo shubhatuljiha shubhatu ariiqna waa la dhahaa marka taa dhexda ku jirta waytaan hadda ka hadlayno masaladaas masale marka sidaa u taalo cid kasta oo fiqiga wax ka akhrisatay ama ha noqoto fiqiga madhabiga shaaficiga oo kale ama ha noqoto fiqulmadaahibka fiqulikhtilaafka iyo madaahibta kale masalada waa masale ay garanaysa waay watu shubha la dhahaa saas daraaddeed baa waxaan kala mid dhigay ninka mooday gabadha u doonan inay xaaskiisii taho sidaa ugu galmooday ilmaha xukunkiisa waxaan kala mid dhigay sidii nin haweeney aan tiisii ahayn mooday xaaskiisii oo iyaduna u galmooday oo kale waxaa la midoo kale meher arkaantiisii qaar ka mida ka maqan tahay oo miskaaxa faasidka la yidhaahdaa haddii isugu galmoodaan isagoo moodaya inay xalaal isu yihiin masalada marar kalena waan ka hadlay macnaa waxa weeye malaha ah amay xalaal kuu too shareecadu kuu xalaalaysay isagoo saa moodaya galmada uu ugu galmooday ayaa ilmaha nasab siinaya oo abtir siinaya maxaa yeele shareecadu
waxay aad ugu dadaashaa ilmaha intii nasab loo heli karo sabab daciifaba ha ahaatee in nasab loo raadiyo oon garac laga dhigin wax yar haddii loo heli karo in intaasi abtir iyo nasab loogu sameeyo dhanka kale shareecadu waxay aad uga dagaalantaa ilmaha in abtir la'aan la dhigo oo ilmaha keliya marba hadduu xarig ku dhasho ama uu ismoodsiisba ku dhashaba yuusan xarig saxaba noqonin shareecadu waxay diidaysaa ilmahaasi nasabka aabihii looma diidi karo mana inkiri karayo ilaa hal xaalo mooyaane oo xaaladda ah inuu licaan sameeyo licaanka waxaa la yidhahdaa inay maxkamad tago oo 5 dhaarood maro inuusan ilmihiisii ahayn halkaa mar keliya ilmuhu nasab waayi karaa saas daraaddeed baa yani waxa way alwaladul firaash qiyaafada ayuu ku sugnaanayaa nasabku halkaasay marka masaladaas salka ku haysaa su-aashaasi marka la soo gooyey oo sida khaladka ay yani u faafiyeen qolyahan muqridiinta ee danaha khaaska leh ayadoo faahfaahsanna waa laydin soo dhigi su-aashii lafteedii ay soo gooyeen oo qaybtay jareen la socotaan insha Allah tacaala waa laydin soo dhigi intanina faahfaahin baan ugu talgalay masalada inaan sii faahfaahiyo xagee kutubta kaga taala culimada tiri ilaan taa hore waan duuduubay oo su-aasha hore markan ka jawaabayay si duudoon baan uga jawaabay hadda laakiin fuqahada iyo madaahibta iyo sida ay kala yihiin iyo faahfaahintaas aan ugu talagalay insha Allah tacaala inaan ku daro ujeedaduna waxa way dad fara badan oo la fidnaynayo oo aakhiradooda la seejinayo oo dambi la gelinayo oo comment bixinayo oo caytamahayo oo la kharibahayo oo waxaas inay iska ilaaliyaan waxaan waliba dhihi lahaa waayahan dambe wad ogtiin fitanka socda balaayo aafaysan baa jira dad muxuu ahay hungurigu ka galay dad muxuu ahay cadaawadi hayso kuwa iska dagaalamaya kuwa shaydaan wato kuwa balaayo gaala wadato kuwa dane kala wato warkii aadamaha saa loo jarjarhayayo markaas dadkii lagu fidnaynaya waxaan leeyahay marka arinta iyada aad la isaga ilaaliyo hana la taxadaro diinteena aanu taxadarno akhradeena aanu taxadarno ruuxays ilaaliyo yani waxa way waxaad qaadanayso iyo waxa aad muxuu ahay aad aaminayso iyo waxa la sheegayo iyo aad looga fiirsado waqti fidna la jooga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh